iyo macallimiinta halkan iskugu timaaday rabbi baa mahad iska leh saakan nagu soo kiciyay subax nabdoon subax Soomaalinimo subax wadaninimo iyo subax qiiraba saaka waxaan halkan u taaganahay ay xiisadaheena u baaqdeen qorax aan u istaagnay dabcan waa inaan muujino meesha aan ka taaganahay dhibaatada ay xamar taala xamar kaliya dhibaato lama abuurin rabbina ma nabca rabbi balse waxa laga yaabaa inuu jecel yahay ay rabbi wuxuu imtixaamaa cida uu jecel yahay aayadiisana wuxuu ka sheegay ma asaba min musiibatin illa bima kasabat aydikum dabcan waxaan kasbanay ma ahan waxay xamar kaliya kasbatay waana lagu imtixaamaya inteena kale in maanta aan halkan ay ka dhici karto ma ahan inaan ka aamusno oo ay ishu markay damqato ilinta ka timaado waxa ilinta ka tira waa gacanta bawdan rag maalinba mid baa qaawan maanta waa Maxamed ayaa noo baahan maanta waa inaan u istaagno oo garab taagnaana waxa ku baaba'ay waa dad Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed waa aabe Soomaaliyeed waxa armal ku noqday waa waalid waa hooyo jiifta meel cilaan awlaad haysan waa hooyo guri saaka u buuxay balse maanta barqadii ay qof ay ugu soo laabato lahayn hooyo waydi walaalkeed waalidkeedii ahalkeedii zawjkeedii ay awlaadeedii maxay galabsadeen caruurtan yaryarka ee ololaaya maxay galabsadeen dadka kan kuwaas nool dhulka ku jir dhulka waxba ma aysan galabsan balse waa imtixaan wax walbana waa dulqaad rabbi baa noo keenay waana ku samirnay laakiin inaan kaga aamusno inaan dhahno waa u tacsiyeynayna ma ahan balse waa inaan muujinta tanna yeesan noqon tiina ugu horeysay yeesan noqon mid bilow ah yeesan noqon mid usbuuc oo gurmad ku socda aan wadno balse ha noqdo mid aan ku garab taaganahay aan ku istaajinayno aan dib ugu soo noolana dadkan ubadkooda dhinta aan u matana booskoodii ma soo celin karno awlaadoodii way tageen waxay tageen way tageen laakiin waxa soo noqonaya oo kaliya waa marka u tacsiyeysid waa kalmad raxmada qof walba ehelka uu ku dhihi karo hooyo laakiin kalmada aabba qof walba ma ku dhihi karo ilmaha aabihiis waayay hooyadiis waayay muxuu sameeyay laba jirada yaryarka ololaay maxay sameeyeen dabcan colka haddii aanan hubeysan wayna burburnay waxaan ku jirnay in ku dhow 30 sano laakiin tan oo kale wali ma arag bal waxay noo noqon doontaa aan rajaynaynaa mas'uuliyiin iyo arday kaleba waxaan rajaynaynaa inay noqoto midii aan ku midoobi lahayn inay noqoto midii aan meel kaga soo jeesan lahayn inay noqoto mid isku kaaya keenta aysan noqon mid aan dhahno wixii dhacaba sabab way ka dhacday laakiin waa mid cashar inoo ah wixii wanaagsan waxay ku noqdaan guul laakiin wixii xun waxay ku noqdaan cashar qaraxaas wuxuu noo yahay cashar waxaan leenahay haddii aad awoodi weydaan bal calka baraf ma lagu dayay aan dhagax fur ka dhigano aanu soo saarno midka naga dhigaya inaan burburino walaalkana dilaayo aabahan dilaayo hooyadan dilaayo dabcan adna wax uu ku taraayo ma jirto marka waxaan ku soo gabagabaynayaa aan u gurmano